weerar dhabagalaya kuwa gaadmaa oo jahawareer xooggan ku riday maleeshiyada al-shabaab ayaa sababay inay iskaga cararaan difaacyadooda ugu waaweynaa ee koonfurta gobolka Mudug. deegaano ku teedsan caad duma iyo dabagalo ay xalay saqdi dhexe baneeyeen maleeshiyadka kooxda mintidiinta ee Soomaaliya. culayskii ugu badnaa ayay kala kulmeen ciidamada qalabka sida oo toddobaadyadii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ay ku daabushay koonfurta Mudug. ila xogagal ayaa inoo xaqiijiyay in culaysku uu soo wajahay kooxdan uu sababay inay baneeyaan fariisimihii ugu waaweynaa ee ku lahaayeen deegaanadaas. geesta kale maleeshiyadka ayaa isku khilaafay habdifaaca deegaanada yar ee ay kaga sugan yihiin gobolka Mudug. dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qiray in mar kale uu dib ugu laaban doono furimaha dagaalka halkaas uu ku hogaamin doono soo afjarka dagaalka ka dhanka maleeshiyada. sidoo kale ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo garabsanaya ciidanka daraawiishta Galmudug ayaa geestooda iyo ka saaray maleeshiyadka difaacidii ugu waaweynaa ee ku lahaayeen deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug. isku soo wada duubo maleeshiyadka al-shabaab ayaa markan wajahaya culays dhinaca dhulka ah oo ay kala kulmayaan ciidamada deegaanka kuwa daraawiishta iyo militariga Soomaaliya kuwaas oo qorshahoodu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kaga saaraan deegaanada yar ee ay kaga sugan yihiin koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. ogeysiis muhiim ah waxaa dhammaan la ogeysiinayaa dadka ku nool magaalada Cadaado iyo nawaaxigeeda in macadka horumarinta haweenka ee Hibo uu bixinayo koorsooyin lacag la'aan ah laga bilaabo 5 Oktoobar ilaa bisha Janaayo ee sanadka 2024. macadka oo hore aad uga barateen koorsooyinka la xiriira cunno karinta, qurxinta dumarka, guryaha iyo sidoo kale barashada harqaanka ayaa hadda lacag la'aan ka dhigay dhammaan koorsooyinkaasi. haddaba wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir lambar fariisu yahay 144 ama booqo xarunta macadka horumarinta haweenka ee Hibo oo ku taal dhanka bari Hotel Central ee degmada Cadaado. mahadsanidin.